Waqtigeyga inta ugu badan ayaan ku bixiyay sidii aan ku heli lahaa ayada mar walba ayada sidoo kale waxa ay sameyn jirtay in ereyada ugu qaalisan ee nafteyda ka soo gooday ee markaas idhaahdo aniga erey walba oo leedahay waxaan u qaadi jiray inuu yahay kan xaqiiqda ah maadaama qalbigeeda aan ku dhex jirin laakiin dareenkeyga ayaa ii sawiri jiray way caashiq kaliga ku galay qof kula jirin laakiin dareenkeyga ayaa ii sawiri jiray mar walba inaan ogaado kaasi oo ah ereyada mar walba ee dhahda bartilmaameedkooda uu ahaa adiga ayay ku jeceshahay qof kale oo dunidan kor saaran ee jeceshahayna ma jirto waxaan maanta ka hadli doonaa warbixin xiiso badan taasi oo tilmaamayso halkee waqtigaada ku lumisaa xilliga haasaawaha haddii aad wiil tahay ama aad gabar tahay ma xiiseysaa in lagu dhaho ereyada xiisaha badan waan ku jeclahay iyo kuwo kale halkee kaa taaban doonaan dareenkaadana halkuu ka gaari doonaa ereygaasi ma yahay mid dhab ah jacaylka afka laga sheego tilmaam noocee ah ayaa lagu dareemaa jacaylka warbixintaas ayaan gudageli doonaa dhalinyaro fara badan ayaana sidoo kale waxa ay dhaawacyo ka soo gaaray jacaylkooda u noqdeen kuwo derbijiif ah kuwo kalena waxa ay noqdeen dhibanayaal jacaylkooda soo gudbi waayey mar walba maqlaan ereyga jacaylkana waxaa ka soo burqanayso ilin aan saa'id ahayn waxaan gudageli doonaa warbixintii waxayna ku bilaabanaysaa sida tani Sakariya waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Yakshiid Sakariya wuxuu ahaa wiil arday ah oo aad u dadaal badan dhanka haasaawaha marka laga hadlayo Sakariya wuxuu ahaa wiil dhanka haasaawaha aad u xiiseeyo maalmaha ka mid ah Sakariya waxa uu jeclaaday gabar la dhihi jiray Saciido iyo Sakariya jacaylkoodu waxa uu iskaga bilowday si kaftan ah Sakariya wuxuu ahaa nin aad u kaftan badan qosol badan dhoola cadeyn badan ereyada xitaa marka uu dhahayo ama qof oo la sheekeysanayo kan kursiga la fadhiyo xataa in ereyada uu dhahayo oo maqla xataa aad ayuu iskaga ilaali jiray goormee hadasho ayay dadka qaar dhihi jireen ereyada markuu gudbinayo Sakariya waxaa qaaday damac jacayl oo aad u weyn damaca jacaylka marka laga hadlayo waxaa marka koowaad lagu sawiraa qofka hortaad u qaadi lahayd inay indhahaada ay ku dhacaan kadib waxaa imaado rabitaan joogto ah iyo raadin fara badan oo aad qofkaas raadinayso ereyada jacaylka ayaa sidoo kale waxaad u qoraysaa si xad dhaaf ah kuwaasi oo ah kuwa ugu xiisaha badan oo aad rajeynayso in gabadha aad jeclaato aad ku soo jiidato Sakariya wuxuu ahaa wiil inta badan ereyada jacaylka saaxiib la ah ereygii uu doonana ayuu ku xariiqi jiray magaca jacaylka Sakariya waxaa u suurto gashay Saciido jacaylkii inuu u sheegto Saciidana waa ay ka aqbashay jacaylkii Saciido waxay ahayd ruux aad u lugooyo badan waxayna nafteeda mar walba ka dhaadhici jirtay adiga inta aan lagu qiyaamin horta adiga qof walba qiyaan Saciido waxay Sakariya hortii soo jeclaato dhowr nin waxayna ku kala boodeen xilligii ballanta ama xilligii guurka markuu dhacay Sakariya waa loo afmaceeyey waana loo dhoola cadeeyey mar walbana dhar qurux badan ayaa loo soo xiri jiray kor ayaana la iska tusi jiray xilliga bareega ereyada ugu qaalisan ayaa la dhihi jiray Sakariya erey walba oo la dhaho dareenkiisa saa'id ayuu sii noqonayay galaaska markay isla joogaan xataa indhaha ayay isku xadi jireen si markaas ay iskugu soo gudbiyaan waxyaabaha markaas ay jecel yihiin hadalka dumarka inta badan wuxuu yahay kuwo dhoola cadeyn ku jirto codkooda iyo oraahaha macaan marka ay kuu soo duubaan waxaad isleedahay ninaan adigu ahayn dunidan kama jeclo halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybtii koowaad anigu waan jeclaay ayadana dhoola cadeyn ayay jacayl iiga dhigaysay waxaad ka daawanayseen barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24 inta aan ku kulmi doono warbixin noocan oo kala nabadgelyo